dowladda Mareykankana waxay uga digtay dowladda Kenya inay dambiye ka geysato Soomaaliya. wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa waxa uu daabacay warbixin dheer oo uga hadlayo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ay ciidamada Kenya ka wadaan koonfurta Soomaaliya iyo gobolka Soomaalida ee maamusha Kenya. warbixinta oo laga dhageystay dadka deegaanka, xubnaha baarlamaanka gobolka Soomaalida ee Kenya iyo waliba marqaatiyaal la wareystay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in shacab ku dhaqan gobolkaasi ay ciidanka Kenya aad uga cabsadaan marka loo barbar dhigo Al-Shabaab. dadka la wareystay waxa ay sheegeen in ciidanka Kenya ay argagixiso la dagaalamayaan iyagana ay argagixinayaan dadka rayidka. taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu uga digay ciidamada Kenya ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ka wada gobolka inay ku kacaan dambiyo dagaal. waxyaabaha lagu eedeeyay ciidamada Kenya waxaa ka mid in ay dab qabadsiiyaan guryaha dadka, ceelasha biyaha ka duugaan, isla markaana dadka ku qasbayaan inay barakac sameeyaan. Desire Frame oo afayeenka howlgalka Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu ka digay in Mareykanka uu il gaar kula socon doono dhaqdhaqaaqyada ciidamada Kenya ee ku sugan koonfurta Soomaaliya iyo gobolka Soomaalida ee Kenya maamusho. Desire Frame ayaa waxa ay sheegtay in ay Mareykanku tababaro ciidamo Kenya qalabeeyo isla markaana siiyo taageero xoog leh oo ay 8 sano ugu dambeeyay ku siirayeen dagaalka Al-Shabaab. afayeenka ciidanka Mareykanka ee Afrika Desire Frame ayaa waxa ay kaloo sheegtay in gudaha wadanka Kenya ay Mareykanka ka joogaan 200 oo askari kuwaas oo tababara ciidamada Kenya isla markaana siiyo taageero kala duwan haddii ay dhibaatada sii wadaan arrimahaas oo idin la joojin doono.